بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayal waa taxanaheennii aynu ugu magac darnay maxaasin ashariica alislaamiya wanaagyada ay leedahay shareecada iyo diinteenna islaamku iyadoo wada wanaag iyo maxaasin wada ah waxaynu qodobkan ku soo qaadanaynaa oo xalqadeennii labaad ah shumuuliyat ashariica alislaamiya diinta islaamku inay tahay diin shaamil ah oo aad iyo aad u guda ballaadhan oo adduun iyo aakhiro wixii aadamuhu u baahnaayeen wax ka maqani aysan jirin wax allaale iyo waxay ugu baahnaayeen qaybaha kala duwan ee noloshooda cibaadadooda caqiidadooda dhaqankooda akhlaaqdooda shareecada islaamka wax ka maqani ma jiro waa manhaj mutakaamil ah oo dhammaystiran oo ilaahay ugu talagalay in nolosha lagu hago weeyaan shareecada islaamku inay shaamil tahay ama guda ballaadhan tahay saddex dhinac ayaynu ka tusaalaynaynaa dhinaca koowaad aynu ka tusaalaynaynaa waxaa weeye waa xagga caalaminimada shareecadan inay tahay shariica caalamiya lijamiici اlbashar shareeco caalami ah oo basharka oo dhan ilaahay ugu talagalay ambiyadii hore nebi kasta waxaa loo soo diri jiray tolkii iyo qoladiisa oo keli ah laakiin nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam shareecada loo soo dhiibay waa shareeco loogu talagalay basharka oo dhan inay wada yeeshaan ka madow iyo ka cad ka carabka ah iyo ka cajamka ah ka wakhtigii nebiga nool iyo ka ilaa qiyaami saaca nool ka baadiyaha degan iyo ka reer magaalka ah ee horumarsan dhammaan waa shareeco iyo diin ay wada leeyihiin weeyaan waxaa nebiga lagu yidhi calayh isalaatu wasalaam wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin saasaa ilaahay ku yidhi wax kale kumaanaan soo dirin inaad tahay mooyaane naxariis caalamka oo dhan naxariisu ah ayuu alla yidhi subxaanahu watacaala waxaa mar kale ilaahay ku yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llaahi ilaykum jamiica waxaad ku tidahdaa dadka dadow waxaan ahay rasuulkii ilaahay oo la iisoo kiin diray idinka oo dhan ayaa la iisoo kiin diray sidaa ku dhaba nabigu calayh isalaatu wasalaam waxay awoodaa markaa diinta tani iyo shareecada islaamku cid walba wakhtiga ay joogto iyo goobta ay joogto inay noloshooda u saameesho oo u habayso si diinta waafaqsan maslaxaddii bulshaduna ku jirta ayay awoodaa 10 qarni oo adduunka xukumaysay waxay la dhaqantay mujtamacaad iyo bulshooyin kala duwan waxay la dhaqantay dhaqamo kala duwan waxay maaragtay isaga gudubtay bari iyo bogox ayay isaga gudubtay adduunka qaaradihiisa kala duwan dadaan isku dhaqan ahayn oo isku af ahayn oo isku caadaad ahayn oo isku nolol ahayn oo isku dabaqo ahayn ayay xukuntay mid walbana maslaxadoodii iyo dantoodii iyo maaragtay siday u noolaan lahaayeen inay u sii wanaajiso oo u sii fiicnayso mooyaane waxba kamay xumaynin taa macnaheedu waxaa weeye waa wax rabbaani ah oo xagga ilaahay ka timid oo ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay basharka oo dhan meel kastay joogaan iyo madal kasta iyo zaman kastay joogaan in ay maaragtay anfacdo oo noloshooda ay u wanaajiso dhinaca labaad aynu ka fiirinayno ama aynu ka arki karno shareecada islaamkiiyo say u guda ballaadhan tahay iyo shumuuliyadeedu waa inay tahay shaamila lijamiici maraaxil اlinsaan waxaa soo gudagelaya oo ay shamlisanaysaa ama ay soo ururinaysaa dhammaan heerarka aadamuhu aw maro qofka bini aadanka ahi laga soo bilaabo markuu caloosha hooyadii galo ilaa laga soo gaadho inta qabriga la dhigayo iilka la dhigayo inta u dhaxaysa shareecada islaamku waxay ka leedahay axkaam cad iyo qorshayaal iyo siyaalihii axkaamtiisa iyo maraaxishiisa oo dhan loo maarayn lahaa ayaa ku qoran ilmaha yare uurjiifka ah oo caloosha hooyadii aan weli ka soo bixin shareecada islaamka axkaam buu ku leeyahay axkaam ayuu ku leeyahay maalinkuu dhasho axkaam buu leeyahay intuu ka korayo axkaam iyo aadaab buu leeyahay maalintuu weynaado oo qof weyn oo mukallafa noqdo axkaam iyo aadaab buu leeyahay maalintuu gaboobo oo tamar dhigo axkaam iyo aadaab buu leeyahay markuu dhinto xataa qabrigiisa iyo maaragtay sida maaragtay loo aasayo iyo sida loo kafmayo iyo sida loo hagaajinayo wuxuu leeyahay aadaab iyo axkaam ayuu leeyahay
marka inay ihtimaam siisay ama ay danayn siisay qofka bini aadanka ay noloshiisa qaybaha kala duwan oo dhan ee uu marayo in la jiheeyo oo la qorsheeyo waa arrin ku tusinaysa shareecada islaamku say u guda ballaaran tahay oo ma jirto marxalad ka mid a maraaxisha aadamuhu maro oo shareecada islaamka aan axkaam ku lahayn ma jiro. dhinaca saddexaad ama jihada saddexaad aynu ka arki karno shareecada islaamkii say u guda ballaaran tahay oo u waxqaad weynta oo u shaamilka tahay waa inay tahay mid shamlinaysa lijamiici axkaami alxayaa, dhammaan nolosha qaybaheeda kala duwan wixii aadamuhu u baahnaa iyo axkaamteedii baa ku cad. oo hadday noqoto caqiido iyo qofku wuxuu aaminayo shareecada islaamka ayaa saldhig u ah iyo aasaas. oo shareecada islaamku waxay ka shaqaysay qofku suu u yeelan lahaa caqiido iyo fikir saxan. hadday noqoto xagga cibaadada ayadana saas oo kale cibaadadii shareecadu waa mutawafir shaamila weeye. haddii ay noqoto xagga mucaamalaadkii maaliga ahaa iqtisaadkii iyo dhaqaalihii oo lafdhabar bini aadanka u ah shareecada islaamku waxay u samaysay qorshe. haddii ay noqoto arrimaha qoyska shareecadu waxay u samaysay arrimo qoys oo aada u ballaaran. hadday noqoto xagga dadka waxyaalaha soo gala gaadha jinaayaadka iyo xuduudda iyo axkaamta qadaaga iyo garsoorka shareecada islaamku hani bay ku tahay, way ku guda ballaaran tahay. haddii ay noqoto dhammaan jihooyinka kala duwan oo insaanku u baahan yahay noloshiisa adduun iyo aakhiraba diintan ayay ku dhantao ku idishahay. dhinac kale haddaynu ka fiirino dhammaan axkaamta aynu sheegnay ayada oo ka guda ballaaran oo ka qiimo badanta bini aadanku qorqorto ayaa ilaahay subxaanahu watacaala diintan inoogu soo gudbiyey. bini aadanku waa laga yaabaa inay tasaatiir iyo qawaaniin ka samaystaan oo ka qortaan sidee u kala baxnaa iyo sidee wax u kala xukumanaa iyo garsoor maxaan ka dhiganaa iyo arrimaha qoyska maxaynu ka yeelnaa iyo ganacsigeenu seebuu noqonayaa iyo waxaasoo dhan waxaa ka afdheer oo ka mug weyn shareecada islaamka iyo siday arrimahan u saameeshay oo u samaysay baa ka mug weyn. waxaa bini aadanka maslaxadiisa iyo dantiisa in la xaqiijiyo uga dhow oo uga xaqiiqo badan boqolkiiba boqol shareecada islaamka ilaahay inoo soo dejiyey subxaanahu watacaala. dhinac kale haddaynu ka fiirino shareecada islaamku waxay qofka u habaysay calaaqada ka dhaxaysa qofka iyo rabbigii, calaaqada ka dhaxaysa qofka iyo naftiisa, calaaqada ka dhaxaysa qofka iyo aadamaha kale ee ku hareeraysan. intaba shareecada islaamku waxay u samaysay qorshayaal iyo nidaam bay u samaysay. taas macnaheedu waxa weeye markaa shareecadeennan iyo diinteennan inay tahay diin aada u shaamil ah oo aada u guda ballaaran oo wax ka maqani aysan jirin adduun iyo aakhiratoona. qofkii qaata waxay ka dhigan tahay wuxuu haystaa manhaj iyo waddo iyo dariiqo ku filan adduunkiisa iyo aakhiradiisaba ayuu haystaa. wallahu aclam. salى اllah waslm calى nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi waslm ajmaciin.